kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada barnaamijkeena ku eegi doono waxa qayb ka noqonaya dagaal faraha looga gubtay ayaa saaka mar kale dib kaga qarxay deegaano ka tirsan gobolka Amhara xalay lagama seexan Shawa Robert deegaano u dhow Addis Ababa duqeymo iyo madaafiic ayaa la dhacay wararka ugu dambeeyay xabayaal shacabkii Amhara waa ay qaxayaan laba isbuuc oo xiriir dagaal ayaa socda jabhadda faanana guulo waaweyn ayay gaarayaan wararka ugu dambeeyay xabayaal qorshaha Abiy iyo ciidamadii militariga oo soo buux dhaafinaya furmaha dagaalka ayaanu barnaamijkeena si gaar ah ugu eegi doonaa saaxiibayaal soo dhawaada wixii aragtay qaybta hoose commentiga xaalado kala duwan ayaa isbiirsaday marka loo eego deegaano iyo degmooyin dhaca dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Amhara waxaana la soo warinayaa in ciidamada hubeysan ee jabhadda faano ay markan si toos ah u bareerayaan in ay qaataan tallaabooyin aan loo meeldayin oo u muuqda in qorshahoodu yahay in ay gaaraan hadafkay rabaan taasi oo ah inay ka adkaadaan maamulka Abiy sida rasmiga ah ciidamada faano waxay bilaabeen in ay ugaarsadaan isla markaana u raadiyaan in ay tallaabada ay qaadaan ay dib u helaan maadaama dhibaatooyin iyo dagaalo baahsan ay ka jiraan dhulkan Itoobiya isbuucii labaad oo xiriir ay gobolka Amhara dagaalo ka socdaan waana la isku baabiinayaa cid kale u naxaysa ma jirto faano way soo hub aruursatay waxaana ay si toos ah isku dayaysaa in ay ugu milanto siyaasadda awoodeedana ay la soo baxdo waxaana taasi marqaati ka ah qorshaha iyo waxay damacsan tahay maadaama ay qayb weyn oo lixaal ay ka qaadanayso qorshaheeda ugu muhiimsan hadda faano waxa ay u aragtaa dagaalkeeda inuu yahay mid guul ah oo si rasmi ah u hana qaadi kara shalay ilaa maanta dagaalo aanu kala joogsi lahayn ayaa socda deegaano badan ayay gacanta ku dhigeen magaalooyin istiraatiiji waa ay duqeeyeen Shawa Robert oo in ka yar 200 kiiloomitir u jirta Addis Ababa waa ay qabsadeen inkastoo maalmo ka hor ay qabsadeen Addis Ababa magaalada Bahardar oo ay dib kaga baxeen haddana Addis Ababa waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaq culus ciidamo ayaa loo soo daabulay gobolka Amhara kuwaas oo difaaca isla markaana magaalada ka difaaca xoogagan hubeysan ee aanu jirin cid qabanaysa Abiy waa uu yaaban yahay militarigii uu ku bixiyay dhismaha iyo lacagta badneed ee uu u diyaariyay inay difaacaan dalka waxa ka adkaanaya jabhado iyo kuwa isbiirsaday waana waxa hadda loo arkayo in ay dhibaato weyn ku tahay qorshaha uu maleegayo ninkan la yiraahdo Abiy Ahmed Ali ee uu ku doonayo Itoobiya mid ah maadaama qowmiyadaha Itoobiya oo dhan ay u diyaar garoobayaan markan in dagaal ay qaadaan oo ay ka adkaadaan cid walba oo qorshahooda ka hortimi hadda waxay u arkaan in ay tallaabooyinkoodu yahay kuwa ay kaga argudanayaan maamulka Abiy iyo sidoo kale maamulkiisa waxaana ay u arkaan ciidamadiisa inay xasuuqaan ka adkaadaan dhul ballaaran qabsadaan tallaabooyin hor la qaadaan si ay u helaan in ay ku fadhiistaan kursiga sare ee Abiy uu isku dhajinayo 10 sano ee soo aadan oo rabo inuu hayo Abiy waqtigiisii waa u dhacayaa dagaaladuna waa si laba jibaarmayaan haddii marba albaab uu xiro albaab kale ayaa ku soo furmaya tallaabo kale ayuu qaadayaa qorshe kale ayaana ku soo furmaya waana waxa kaliya ee hadda aragtidu aad u dhibayso marka loo eego Abiy in uu tallaabooyinkaasi iyo sidoo kale qorshayaashaasi muhiimad gaar ah siiyay dhinacyada kale hadda qorshaha ugu muhiimsanaa ee ay damacsan yihiin dhinacyada waa fursad weyn oo u furan in ay qaadaan oo ay bilaabaan qorshe badan oo arrintan la xiriirta laakiin taasi micnaheedu ma aha kaliya inay qaadaan tallaabooyin kale oo xaaladda wax ka bedeli karta waxaan soo laaban doonaa wararka Itoobiya ee wararka naga soo gaaraya gobolka Boqol ayaa sheegay in howlgal culus laga fuliyay halkaasi isla markaana la fashiliyay qorshe ay damacsanayeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda khawaarijta Shabaab oo ku sugnaa duleedka degmada Waajid ee gobolkaasi ciidamada qaranka ayaa dagaalyahano ka tirsan khawaarijta Shabaab ku weeraray goob ay isku aruursanayeen duleedka degmada Waajid ee gobolka Boqol halkaasi oo ay ka soo maleegeen weerar lagu baacisanayo isla markaana lagu beegsanayo ciidamada dawladda wararka hordhac waxay sheegayaan in la helayo howlgalkaasi ama wararka laga helayo howlgalkaasi waxay tilmaamayaan in la xaqiijiyay in kooxda jab culus lagu gaarsiiyay halkaasi iyada oo la soo warinayo in meedad tiro badan ay ka carareen dagaalyahanadii khawaarijta ahaa ee halkaasi ku sugnaa ama dagaalamayay qaarkood nolosha ayaa lagu soo qabto ciidamada ammaanka ay gacanta ugu jiraan sida saraakiisha maamulka koonfur galbeed ay warbaahinta dawladda u sheegeen sidoo kale saraakiisha ciidamada waxa ay sheegeen in howlgalku dhankoodu ay xaqiijiyeen in kooxda al-shabaab ka xoreeyeen goobihii ay isku aruursanayeen oo lagu weeraray burburinta shabakadan shabaabka ay khawaarijta ay isku aruursanayay Waajid
ayaa imaanaysa xilli ay shalay ciidamada dowladdu iyo kuwa Jubbalandba ay bilaabeen in howlgalla ay ka fuliyaan deegaanada cajiinka webiga oo hoos taga degmada Jamaam ee gobolkaas. Howlgalkaas ayaa lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan qawaariista shabaab oo ku sugnaa halkaasi sida lagu sheegay bayaan shalay ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Howlgalkan waxaa loo qorsheeyay si heerkiisu sareyso laguna dilay in ka badan 30 qawaariis ah ayay ciidamadu ka fuliyeen deegaanada hoostaga degmada Jamaam ee gobolka Jubbada Hoose iyo jiinka webiga ayaa lagu yiri bayaankan dowladda. Sidoo kale waxaa howlgallo kale oo ka dhacay deegaanka Baarsanguuni lagu qabtay ilaa 10 xubnood oo ka tirsan qawaariista shabaab oo iyaguna dhibaato ka wada gudaha deegaankaas. Ciidamada ayaana helay xogtooda kadibna tallaabooyin ay qaadeen ayay dabadeed gacanta ku soo dhigeen. Si kastaba maalmihii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa kordhiyay howlgalladii ka dhanka ahaa kooxda Al-Shabaab, taasi oo meesha ka saaraysa gabaabsigii iyo sidoo kale gaabiskii beeyay dambe ku yimid howlgallada kooxda oo wajiga koowaad ee dagaalka looga xoreeyay deegaano iyo degmooyin muhiim u ah oo ay sanado badan gacantooda ku jirtay. Kooxda qawaariista Al-Shabaab waxay la kulmaysaa jabkii ugu xoogganaa ebed tan iyo intii la aasaasay 15 sano ee lasoo dhaafay oo ay ka talinayeen qaybo badan oo ka mid ah Muqdisho iyo Soomaaliya. Hadda qorshaha lagu wajahayo kooxdan dhiig-miiratada ee qawaariista ayaa noqonaysa in fashilkoodu yahay in ay u arkaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhuumaaleystaan ama ciidamadu ay la dagaalamaan iyagoo awood ahaan aanan u babacdhigi karin goobaha iyo fariisimaha ay ka dagaalamayaan ciidamada militariga Soomaaliya. Dhanka kale, weerar ayaa laga cabsi qabaa in magaalada Muqdisho uu ka dhaco. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar culus oo ay xalay Al-Shabaab ka fuliyeen magaalada Muqdisho kaasi oo sababay khasaare xooggan. Weerarka oo ka dhacay degmada Daynil ayaa waxaa lagu qaaday guri uu deganaa ama uu ka degnaa Buurdhere nabadoonka lagu magacaabo Cabdi Xasan sida ay sheegeen ila dadka deegaanka ah. Wararku waxay sheegayaan oo intaasi ku darayaan in xubno ka mid ah ama xubno badan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay fuliyeen weerarkan kaasi oo gudaha u galay guriga marxuumka kadibna si arxan daran u dilay marxuumka. Marxuum nabadoon Cabdi Xasan ayaa la dilay ama rasaas lala dhacay tiro badan ayaana rasaas oo haleeshay jismigiisa taas oo ka muuqata jirkiisa kadib weerarka waxaana la dilay askari waardiye oo ahaa oo halkaa ku sugnaa. Xogayaha maamulka degmada Daynil oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay jiritaanka wararkan iyo dilka nabadoonka wuxuuna sheegay inay gurmad sameeyeen kadib weerarka. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in gacanta ay ku soo dhigeen 2 ka mid ah shabaabkii weerarka geystay oo nool, mid kale oo meyd ah sidoo hadalka u dhigay ay soo qabteen gacanta ayayna ku hayeen laamaha ammaanka ee dowladda. Ma jiro wax war oo ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab ee kooxda qawaariista oo ku aadan weerarkaasi, mana cadda sababta ay u aadeen ama ay u beegsadeen nabadoonka oo gurigiisa uga tageen xubno aad u hubaysan oo ka tirsan kooxdan qawaariista. Weerarkan ayaa ku soo aadayay xilli maalmihii ugu dambeeyay ay deganeed xaaladda ammaan ee Muqdisho kadib qorshe cusub oo ay la yimaadeen hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Tallaabooyinka ugu dambeeyay la qaaday waxay ahaayeen kuwo looga hortagayo falalka kooxdan garacan ay ka geystaan magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka Soomaaliya, waana tallaabooyin horey loo diyaariyay in looga hortago qorshayaasha ay kooxda maleegayso. Guddaan saxaab halkaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo.